علماء دينka gobolka Sool ayaa u mahad celiyay mas'uuliyiinta hay'adda Haro qaybtii ay ka qaadatay abaaraha ka jira gobolkaasi Sool. Mukhtaar Cabdi Jaamac oo ku sugan magaalada Laascanood ayaa warbixintan halkaas ka soo diray. علماء دينك مقالة الله سبحانه يسوع كله جديد أبارها قبل كسول أيه وجم هذا نقي حياة هارو قرمت كي أوفي السيدات كي أبارت صام السيد دجانا الصول سراج عين يسوع كله دجانا بطلان وحين كوا معنا سيدي مقتة يقوى قالتي قرمت كأبارها وحاورين مدرش كعلي مسؤولين تهاية هارو يجون كور بحية وحيالي وقب صومي مدة يكون شرين قرمت كأبارها أنا وكيل كهارو ياسين عبد الله علي أنا بعدين أنا مكهور كود دقيقة ده warbixinta aan akhrinayo waa warbixin la soo dhaafay waa xoolo baxay oo tagay weey xoolahan maadaama ay badnaayeen meelo kala gedisan ay gaareen hay'adda Harano ay hay'adii soo ururisay marka hore lacagtu wax ka koobnayd aniga wakiil ahaan la igu soo aadiyay $90,000 $30,000 oo kamid ah gobolka Mudug bay ahayd gaar ahaan Galdogob iyo qaybta Cadduunka labada qaybood bay ahayd kaashin baan ku gadnay ساسا أفلم لحظة كنا كامدانا بحسوق الشيء دجامو يكملين عرقابو تلاح يجوري بعمة كلابير ورور عقاق دركين بوهول انتاس أي وكلا بحيسي قيبت وبدنا وحقات لما مقالة بوهول ولا هيد صدق كون يبقول صدق يكون يبقول يمقالة عرقابو ويدنا إلى هيد $10,000 انت كلا هكلا هاين لبا كون أفركون أنت أصل عقول حيس أفركون يلا بكون بي وكلا حيس لعقتاس كوكيل هوا سوق بني dadkii waxana raashin baa loo gaday waxana biyo loo gaday qolo walbana iyadoo tafaasiilsan waxay leedahay qoraal iyo saas oo kale kilib ama duubitaan oo dadkii inta la soo gaarsiiyay bili la soo dhaafay ama asaabiicdi la soo dhaafay waxa deegaankan kaalmo soo gaarsiiyay ururka Haro oo wakiil u yahay Yaasin Cabdilaahi saldhigiisuna yahay Garoowe kaalmadaas oo sida la sheegay 60,000 gobolada tan ka soo gaadhay hay'addu Yaasin bay u soo wakiilatay isaguna waxaan ka marxaatay kacayna ama aan sheegaynaa inuu gacmo aamina dad lagu kalsoon yahay u dhiibay toosna dadkaasi meelihii loogu talagalay ay gaarsiiyeen iyada waxyaabihii loogu talagalayna ay ku iibiyeen halkan ma mahadnaqaynaa hay'adda Haro oo runtii abaaruhu ay jireen qayb xal ka qaadatay caawinta iyo taakuleynta dadka tabaalaysan ee muslimiinta ah oo meelo kala duwan oo hadee baahi ka taagan tahay ka geystay waxtar weyn Yaasin Cabdulaahi warbixintiisa maqlayseen runtii hawshaasi uu ka wada maxay ahayd hawl ballaaran oo runtii deegaan badan gaadhay ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kasta oo ku soo bixisay barnaamijkan in ilaahay ka abaal mariyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka baryaynaa walaalaha sadaqada soo bixiyay runtii waliba waqtiga loo baahnaa baahidu ay taagnayd gaar ahaan harraadka iyo gaajadu ay aadka u jireen runtii anagu hadaanu kulay gobolka Sool waxa weeyay Sheekh Yaasin Cabdilaahi waxaanu leenahay lacagta waa soo gaarsiiyay deegaamo badan baa Ilaahay ku anfacay subxaanahu wa ta'aala dadkana Ilaahay un baa Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascanood